waxaan leeyahay midowga heybad qaran hambalyo 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 marka xigana waxaan hambalyeenayaa mudane cabdi faarax shiqdoon saacid oo caawa shirweynihii koobaad ee midowga heybad qaran ergadiisii ka soo qayb gashay ee halkan ku ansixisay inuu noqdo gudoomiyaha midowga heybad qaran ahna musharaxa u taagan xilka madaxweynenimada ee heybad qaran 2026 mudane waxaan ku leeyahay hambalyo 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 waxaanan kuu rajaynayaa in ilaahay mas-uuliyaddaas culus ee uu shirweynuhu kuu doortay inuu ilaahay kula fududeeyo kuuna sahlo insha allahu tacaala annaguna kuma oranayno sidii nimankii reer bani israa'iil ay yidhaahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun kuma oranaynee in mas-uuliyaddaas culus ee midda hore ee midowga iyo guddoonkiisa ah iyo midda kale ee dalka hoggaamintiisa ah waa kugu garab taagannahay waanan kugu ayadaynaa insha allahu tacaala haddaan intaas oga baxo intii salaantii iyo hambalyadii dabcan midowga heybad qaran arrinta midnimada qaranka ama arrinta midnimada dalka oo ah arrin weyn oo dalka Soomaaliyeed u ah arrin aad u culus iyo dhacdooyinkii dambe ee hadda dhacay mowqifka uu ka leeyahay waa mowqif cad warqad qoraal ah oo mowqifkiisa ku saabsanna wuu ka soo saaray annaga mowqifkanaga heybad qaran ahaan ee qadiyaddaas ku saabsan wuxuu ku taagan yahay laba tiir tiirka koowaad waxay tahay in aan u taagannahay ilaalinayno dhowrayno ka soo horjeedno cid kasta oo kala dhantaalaysa midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayay mowqifkeena koowaad haddaan nahay midowga heybad qaran ama bannaanka aan joogno ama xilka dalka iyo mas-uuliyaddiisa aan qabanno labadaba waxa aan ku shaqaynayno oo qadiyaddaas ku saabsan tiirka koowaad oo siyaasadeennada midnimada dalka ay ku salaysan tahay waa qodobkaas asaga ah oo ah inaan u taagannahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed aanana ka soo horjeedno cid kasta oo qaybinaysa inaan ka soo horjeedno tiirka labaad ee ku aadan siyaasadannada midnimada dalka waxay tahay in aan ku wajahayno qadiyadda reer Somaliland oo ah qadiyad muddo dheer soo jiitamaysay maamuladii la soo dhaafayna ay ka gaabiyeen inay xal waara oo dhab ah ay la yimaadaan inaan ku wajahayno xal dhab ah iyo maskax firfircoon oo furan qadiyaddaasna aan u diyaarnahay inaan xallinno sida ku jirta maslaxadda iyo wadajirka Soomaaliyeed inaan u diyaarnahay walaalayaal sidaad la socotaan shirweynihii carta ee 2000 la qabtay laguna soo yeegaleelay dowladnimada maanta aan haysanno oo jamhuuriyadda saddexaad waajibaadkii afartii waajib ee shirweynaha laga soo qaatay ee dowladdii ku meel gaarka ahayd xilligaa la dhisay ee ahayd inay dadka Soomaaliyeed afartaas waajib ay u dhammaystirto waxaa ka mid ahaa uguna horeeyay inay u howlgasho midnimada dalka oo dalka oo kala qaybsanaa ay midayso laakiin nasiib xumo 25 sano kadib dowladihii muddadaas jiray waa ku guul daraysteen in ay qadiyaddaasi xalliyaan lana yimaadaan siyaasad sax ah oo ay ku wajahaan kuna xalliyaan siyaasaddaas ayada ah isku sheegi mayno midnimada iyo ahamiyadda ay leedahay midnimada iyo ahamiyadda ay leedahay dabcan haddii dhinac sharci iyo diin la aado waa iska caddahay haddii dhinac caqli iyo mas-uuliyad la aadana waa caddahay waxaan rabaa inaan hal maahmaah aan ku soo ururiyo midnimada iyo ahamiyaddeeda nin reer galbeedkaas ah oo galbeedka Soomaaliya u dhashay
ملا عبد علي راجي المادير أهاينه باو شوبي عيل بو شوبي عيل كيبو وحو أركي رجي لشوبي أو كلمة كلا تاجنا إن دنكود وجابس كجرو وحو يصير مركا ورأرماد أديو كلمة كلا أتكتا أو رجعنا إسكوب الدشة سدح ذي كلمة عيل كلي شوبي ومربى متجي ويستاجي سوولي ضليشي وتاجنته وحو آمنه قفان أساق أهين أو شقها يبا إنو يسجلين مركابو وحو يري الله يائي كلا جرى أو قنت إيديغا أو نحض إيديغا أو جيسك إيديغا وسدح ذي كلمة عيل كلي شوبي متكلو مقليا وحو يري أوغا لقب أصدر إسكويال بو عتلواي وصاصو لكلا قبي أو لكلا جرجري مركا هدان سومالينا هاي meesha aan ku naalno istiraatiijiyadeeda iyo ahmiyadeedana aan ognahay tira iyo taye intaan la egnahana aan ognahay marka loo fiiriyo qoomiyadaha kale ee geeska Afrikada degan ee nagu hareeraysan wada jir iyo inaan wada jirnaa wax ku heli karnaa aan ma aragtay horumar iyo wanaag ku keeni karnaaye annagoo kala googo'no kala irdhownay waa mushkilo inteeda la eg waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo هذا مشكلة أن كعبنا إنه تاجر ومشكلة الصوماليلاند نبى وحلاقة شيء مساجد كيبا قيلة كيرت صوماليلاند إسكبت دايه أنتي كله مل مكوجنا أنتي كله ما يسهي ستا أنتي كله إسكو اتجاه متى جوابته وحنا ملينا إنه تهمية تاسنا وحي كتمت سياسة حميدة دولة ما أنت جرته أي كتمت أنا وحان رنتي فايل كسومالي لأن أنا هيي لبا حلي وحوها حلي جوهرة معمول كي مدحونا حسن شيخ حلنا وحوها حلي أنا هدا معمول كي مدحونا حسن شيخ وحان رنتي قرية إن أن فايل كاس يا شقراسي وحي أي منيت يا أهمية دي إيه لهد إن على السنين لغونا بحنين أيان قرية لماذا حل عن فيل كاس هي لماذا با إن عن قد يداسي وحا أي منيت يحالكي رمت أي منيت إن عن لغو أبارين أيان قرية تاس هدان هلكا أغبحو وحان ربا إن عن وحير كيرا هذو هيبت قرن إيو أساس كيدن وحير كيرا هذو طبعا سيدا الأركيسين مدوغو هيبت قرن وحوها اسكودي يددال مدو سنة كله سو سعودي dad kan odayaasha ah iyo siyaasiyiintii ruuga cadaaga ahna runtii ay wadeen waxaan dhihi karaa heybad qaran waa tajribo cusub oo ku cusub siyaasadda Soomaaliya waa hab dib u qaabeynaya siyaasadda Soomaaliya maxaa yeelay siyaasadda Soomaaliya waxay ku tiirsaneyd qof iyo nin walba iyo damaciisa ku tiirsaneyd laakiin maanta in la helo dad Soomaaliyeed oo hogaamiyaal ah oo nin walba damaciisa intuu meel dhigtay u soo istaagay in waddankaani urursanaan iyo midnimo lagu badbaadin karaaye aan midowno fishin iyo aragti naga dhaxaysa ee qof fishinkaasi aragtidaas nagu hogaamiyahna aan qaadano waa aragti cusub waay waxaan rajaynayaa aragtidaasi in ay horseed u noqoto dib u qaabaynta siyaasadda Soomaaliya saaxiibada kale ee saaxiibadeen ee siyaasiyiinta ahna waxaan ka rajaynayaa inay nagu daydaan oo ay ayaga laftirkoodu intii isqaadan kartaa ee isqaadato si itijaaha dalka uu soo ururiyo oo dalka oo idil saddex isbahaysi oo aragtiyo kala duwan oo siyaasadeed oo cad kala wata ee dalka hoggaankiisa ugu tartamaan ma aragtay cidii guuleysata ma ahna cidda kalena sixitaanka dadkaasi iyo barnaamijyadooda ay ka shaqeeyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay shirweynaha hambalyo waxaan sidoo kale hambalyo leeyahay gudoomiyaha la doortay aad iyo aad u mahadsantihiin.